waxaad kaloo halkan uga jeedaan ciyaaryahanka reer Buulamiro oo ka tirsan Switzerland mudane Umar oo loo yaqaan Umar Kurdi waa Umar Hussein Umar ku soo dhawaad galabta natiijadiina ka war insha Allah inay taamaada derbi waa maashkan marka xarajeyna 3 dhibcood inaan qaadano ana ka badinana waxaan idin rajeynayaa guul galabtay ciyaarta ay Switzerland la ciyaarayso kooxda Tunabuni oo labaduba ay ka wada tirsan yihiin degmada Burlanga ka waran ciyaarta wallahi waxaan aaminsanaa ciyaarta inaan bari karno boqol sababtoo waxaan haysanaa ciyaartoy fiican ciyaartoyda qaar cross ay ku doonaan soo wada laabteen waxaan rajeeyaa inaan badino ciyaartan kaliya ma aha inaan ciyaar wada badino insha Allah maxaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Burlanga ee aan iyagu imaanin ciyaaraha ay ciyaarayso kooxda Switzerland oo Soomaalida aad ku guwaabinaysaa dadka Soomaaliyeed oo ciyaartan imaan waxaan leeyahay in qof walba Soomaali inay ciyaarta imaato inay ka soo qayb galaan inay ciyaalkooda iyo walaalahooda yimaadeen ay taageeraan kooxda waxay u baahan tahay taageero waqti walba in la garab istaago marka waxaan ka codsanahay walaalaha ku nool Burlanga inay yimaadeen waqti walba kooxda ciyaare ay yimaadeen taageeraan intaas ka codsanahay insha Allah waxaan idin rajeynaynaa guul sida aad u jeedaan kooxda Switzerland waxay ka tirsan tahay divisionka afraad ee horyaalka dalka Sweden waana dhalinyaro intooda badan ay Soomaali yihiin magaca Soomaaliyeed ayay ku matalayaan naadiga inkastoo ay ka ciyaarayaan horyaalka dalka Sweden ee divisionka afraad waxa kamid ah ciyaartoy kale oo ka tirsan balse inta badan mostly waxay u badan yihiin Soomaali waxaad u jeedaa Taajirow oo banooni dhiibay Taajirow Diblaawe rag badan oo culus waa kan weeraryahanka aadka u culus Mawlid oo ah ciyaaryahankii Ovesta ka dhaliyay goolka waana ciyaaryahan ku ciyaara labada lugoodba waa meesiga Soomaalida ee Switzerland